Bismillahirrahmanirrahiim. Kula wanaagsan daawadayaal, halkani waa channelka wararka ee Warqad News TV. Ku soo dhawaada warbixintan gaarka waxyaabaha aynu ku dul istaagi doono waxaa qaybka maamulka gobolka Banaadir oo si cad u sheegay in Muqdisho banaanbax aysan raalli ka ahayn lagu qaban doonin. Mucaaradka oo ka soo jawaabay Khamiista oo banaanbax weyn loo ballansan yahay. Maxaa ka dhalan doono tilaabada mucaaradka iyo baaqa maamulka gobolka Banaadir? Dhinacyadan waxay la kala safan yihiin Rooble iyo Farmaajo. Warbixinteenan ayaan ku dul istaagi doonaa. Fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sii share garay oo saaxiibadaada kale la sii wadaag. Page-keena iyo YouTube-keena Warqad News TV-na ku soo bir. haddii aynu ku bilowno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa maanta shir gudoomiye kulan aan caadi ahayn oo goobjoog ka ahayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka iyo qaybta guud ee gobolka Banaadir. Gudoomiye Finish ayaa si adag uga hor yimid banaanbax ay abaabulayaan mucaaradka kaas oo qorshe u yahay inuu magaalada Muqdisho ka qabsoomo Khamiista soo socoto. Waxa uu sheegay in xilligan magaalada Muqdisho aysan xamili karin culaysyo hor leh iyagoo banaanbaxa abaabulkooda ka socdo Muqdisho ku tilmaamay mid fowdo ah oo ka dhana amniga caasimadda. Sidoo kale waxa uu faray saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga caasimadda dalka ee Muqdisho, waxaana ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan oo laamaha amniga kala shaqeeyaan nabadgelyada caasimadda. Gudoomiyaha ayaa arrintan qeyl weyn uga dhigay in heshiis laga gaaray madmadowgii siyaasadeed ee jiray ee doorashooyinka ayna dhankooda ku qanceen mucaaradka, inkastoo banaanbaxan uu yahay mid ka dhan oo Farmaajo looga soo horjeeday iyo afgambigii isku dayay 27 Diseembar. Ma ahan markii ugu horeysay oo maamulka gobolka Banaadir uu si cad uga hor yimaado banaanbax ay mucaaradka qorsheynayaan inuu u qabsoomo Khamiista, ayadoona 2 maalin ka hor gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare uu ku dhawaaqay magaalada Muqdisho aan lagu qaban karin banaanbax aysan fasax uga haysan mucaaradka gobolka Banaadir. Haddii taa dhacdana tilaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan. Mas'uuliyiinta raacsan Farmaajo ayaa xilligan ku howlan baajinta dibadbaxaas xoogan oo mucaaradka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee Muqdisho ay ka qayb gali doonaan, iyaga oo dhawaan ay qabsada dibadbax ay ku soo koobeen hotel oo haween taageersan madaxweynaha madaxweynaadkiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaadeen la isugu keenay. Balse haweenka waxay xuseen dalka xilligan aan dagaal iyo fowdo siyaasadeed u baahnayn, balse loo baahan yahay in laga taliyo aayaha ummadda Soomaaliyeed iyo sidii hore lagu sii socon lahaa. Waxaa weli magaalada Muqdisho ka socda abaabulka banaanbaxa looga soo horjeeda afgambigii fashilmay 27 Diseembar ee lagu qaaday xafiiska Rooble iyo xukuumaddiisa ay wadaan mucaaradka. Banaanbaxan waxaa si weyn uga hor yimid maamulka gobolka Banaadir oo la fahansan yahay inuu gadaal ka reexayo madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaadkiisa dhammaaday, waxaana ka qayb banaanbaxani siyaasiyiin waaweyn iyo xubno ka mid ah mucaaradka oo dhankooda qorsheynaya in banaanbaxaas weyn ay ka qayb galaan. Sida uu qorshuhu yahay banaanbaxan waxaa magaalada Muqdisho ka dhici doona maalinta Khamiista ay soo socoto, waxaana looga soo horjeedaa madaxweynihii hore iyo tilaabadu isku dayda ahaa iyo awoodda ciidan uu ku qabsan rabay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble oo ku tilmaamay Rooble dhankiisa shaqo joojintii lagu tilmaamay iyo isku dayga ciidamadaasi afgambiga Farmaajo damacsanaaba balse ka fashilmay. Waxaa hadda ku soo biiray oo qayb ka noqday labadan arrin oo ah anjadaha banaanbaxaasi lagu aamusi doono sawirkii taariikhda ahaa ee madaxweynihii koowaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan. Wasiirka hore ee amniga maamulka Galmudug oo ka mid ah qabanqaabayaasha banaanbaxaasi lagu wado in magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo ayaana sheegay in banaanbaxaasi ay ku sharfi doonaan Aadan Cadde oo maadaama Farmaajo sawirkiisa ka fujiyay madaxtooyada oo xalay hadalhayn badan khudbadii uu jeedinayay ay sababtay. Banaanbaxan oo qorshihiisu soo bilowday ka hor intaan heshiis laga gaarin doorashada oo shirka golaha wadatashiga qaranka ee Muqdisho ka bilaaban, waxaa weli mucaaradku ku adkeysanaya inuu qabsoomi doono, iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu ku dhawaaqay inuusan qabsoomi doonin banaanbaxaasi aan fasax ama ogolaansho aan looga hayn maamulka gobolka Banaadir. Mas'uuliyiinta ay qabanqaabinaysa ee mucaaradka banaanbaxan ayaana horey uga dhawaajiyay inay fasax uga haystaan wasaaradda amniga maadaama wasiirka amniga uu yahay saaxiibada u dhow Rooble, taas oo meesha ay gali karto isku dhac ciidan maadaama maamulka gobolka Banaadir ay tiro dhowr jeer ku celceliyeen haddii banaanbaxaasi aan laga baaqsan ilaa amar laga helo iyaga ay qaadi doonaan tilaabada ku habboon. Farxaan Qaroole iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaana la xusayaa inay qaateen kulan gaar ah oo ku aadan sidii banaanbaxaasi ay uga hortagi lahaayeen waa haddii iyaga aan lagala tashanay maadaama Farmaajo looga soo horjeedo noqon doonana banaanbaxaasi mid saameyn xoogan sababa. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo akhrinaya warmartiyeedka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha kale iyo laamaha amniga ayaa sidaan yiri:
ciidamada booliska qaybahooda kala gedisan ee qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa waxaa loogu hadlay marxaladaha dalka uu ku jiro xilligan kala guurka ee doorasho uu dalka wajahayo iyadoona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu warbixin ka siiyay dhammaan saraakiisha qaybahooda kala gedisan iyo gudoomiyaasha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay shirkii madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee soo gabagaboobay taasoo lagu asteeyay bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho isla markaa muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gabagabeeyo sida daraadeed shirkan waxaa la isla soo qaaday mar haddii dhammaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gedisan oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshadaba ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu taageeray bayaankii ka soo baxay warmurtiyeedkii shirkii madasha qaran in magaalada Muqdisho aysan u sii baahneen dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka Banaadir uu ugu digayo dhammaan bulshada qaybahooda kala gedisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dhibaatooyinka hor kale la damacsan magaalada Muqdisho mar walba shaatiyada kala gedisan u soo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gedisan caasimadda magaalada Muqdisho runtii uma baahna culeysyo kale oo hor leh mar haddii wadanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneynaysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qayb galaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ana waxaan faraynaa in maamulka gobolka Banaadir uu marnaba ka aqbali doonin in caasimadda ay ka dhacaan waxyaabo fowdo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka Banaadir xaaladda Soomaaliya ee siyaasadeed marba marka ka dambayso way ka sii daraysaa iyadoona beesha caalamka ay ku baaqayso in dhinacyada siyaasadda Soomaaliya la isku tiro doorasho xor iyo xalaal dalkan laga qabto baaqa beesha caalamka ay maanta soo saareen waxay kaga dalbadeen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya soo dhaweeyeen shirka golaha wadatashiga qaranka in doorasho la dedejiyo waqtiga loo asteeyay 25 Febraayo lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka si hore lagu sii dhaqaaqo oo doorashada dalkan xiisada taagan ka samata bixi karto loo soo gabagabeeyo inta ayaan ku soo gabagabeynaa tabinta warbixintan gaarka ah kala socoteen channelka wararka ee Warqad News TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow oo ku soo beer boggeena YouTube iyo sidoo kale Facebook si aad u hesho xogahayna halkan soo galina mahadsanidin